السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت بدن فرحد يعافي ما تأمى يعني رجينا إياها مقالك waxaan ku soo qaadanaynaa saddex dalool ragga uga galmooda xaasaskooda diinteena macaan ee sharafta badan waxay noo tilmaamtay sida aynu noolaanayno habnololeedkeen qaabka aynu u fadhiisanayno qaabka aynu u seexanayno qaabka aynu wax u cunayno iyo qaabka aynu isku galmoonayno xilliga aynu kala raadinayno inaynu isku raaxaysano ama inaynu ubad kala dhalno si tafiirtu ay u badato laakiin in wadooyin kale oo qaldan laga raadiyo raaxada waa mid ka hor imanaysa anshixii insaanka ibni aadanimada qofka ibni aadanka ilaahay baa karaameeyey walaqad karamnaa bani aadam qofku mar hadduu karaamaysan yahay in lagu xadgudbo ma wanaagsana xataa labada qof waxaa hadday ka wada raalli yihiin oo ninka iyo naagta isqaba ay ka raalli yihiin waa wax qaldan inay iska daayaan saddexdan goobood waa saddex aad u fool xun isla markaana ma habboona ninka inay macdantiisa manidiisa xooggiisa ahayd ee quruxdiisa ahayd ee awooddiisa ahayd ee tafiirta uu ku helaya inuu goobaha ku daadiyo saddexdani waxay kala yihiin dabada afka iyo ibta xundhurta saddexdaa meelood ragga uga galmooda dumarkooda waxaynu digniin halkan uga diraynaa inay sida ugu dhaqsaha badan ay u joojiyaan waxaa jiraya inagu waxaynu ku ogaanaa arrimahan inay dhacaan waxaynu leenahay Facebook page qoraalada laynugu soo qoraan dadku waxay nala wadaagayaan ay noo sheegayaan wax badan baynaan bulshada xataa mararka qaar aynu kala xishoonna markaas kuwani way dhacaan rag dumarkooda uga galmoonaya dabada qaar afka uga galmoonaya iyo qaar xundhurta ama ibta xundhurta uga galmoonaya saddexdaasiba ragga way jiraan yaanay nagu badnaanin laakiin oo weliba kula talinaya qaar kule xaasaska iyaga ayaa doonaya in dabada looga galmoodo qaar kule annaka ayaa jecel inaanu xaaska dabada uga galmoon qaar kule haweeneyda ayaa reexadeeda ka qaadanaysa iyo qaar kale oo iyagu markaa cudurdaare u raadsanaya si kastaba ha noqotee saddexdan goobood caqlan wa sharcan siran wa calaaniya khaasan wa caaman intaba waa ku qalad oo maskaxda ibni aadamku xataa ma qaadanayso dabada oo xaaskaaga aad uga galmooto culimadu in badan bay ka hadleen inay tahay wax dembi aad u ballaadhana oo xaaraana inay tahay shay qofku haddii uu sameeyo uu halis ku geli karo si ballaadhan bay culimadu ugu tiiqtiiqsatay oo runtii ay uga hadashay afka ma aha goob la iskaga galmoodo laakiin ninku inuu xubinkiisa taranka qofka dumar afkeeda uu geliyo wax raaxa uu ka helayaana ma jirto biyaha tarankee bartaa ku soo baxaana waa biyo khasaaraya iyaduna mid habboon ma aha xanuunada ku dhaca afka ee loo yaqaano cancer mouth of cancer ama kansarka ku yimaada afka kansarada ku dhaca qaybta oralka ama oral cancerka la yiraahdo dhammaantoodna researchadii ugu dambeeyay waxay muujinayaan in dadka afka iskaga galmooda ama galmada afka sameeya inay ku badan yihiin kansarka ku dhaca afka qaybta ugu dambaysa waa ibta xundhurta ibta xundhurta waa meel iyaduna hostin u noqon karta maadaama ay tahay godgodan in pathogen iyo bacteria ay gasho taasina hadhowto markuu xubinkiisa taranka goobta ninkuu ku dhufto uu ka qaado sidaana uu xanuuna ku qaado saddexdaasiba saddex habboon ma aha haddaba waa mid aynu uga digayno raggeenna oo laakiin dadka dhaqamadan sameeya ay ku yar yihiin dumarkuna waa dad caqli iyo garaad iyo garasho leh ee ninka waxaa kula yimaada inaad gacan biraa iskaga qabato inaad u sheegto ilaa heer aad la gaadhayso haddii uu isasturi waayo inaad ceebtiisa bannaanka aad u soo saarto oo ciddii markaa xadhigga u ah ama culimada goobtaa joogta ama cidda kaa qaban karta aad u sheegto waa marka adigu u digto ee uu joogi waayo waxa sii aad ku qancin karta ninkaaga maaha waxaad ugu sii raaxayn karto maaha waxaad markaa ninkaaga aad ku raalin karin karto totally maaha intaas ayaynu ku soo ururaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.